ciida jacaylka ama maalinta wadaadka Valentine waxa ay ku beegan tahay maanta oo kale waxaana dadka dunida dacaladeeda ku dhaqan ay u dabaaldegaan sanad walba marka ay bisha Febraayo 14 tahay gaar ahaan dalalka afka Ingiriisiga looga hadlo maanta oo kale waxa loo aqoonsan yahay maalin ay dadka jacaylkooda isku muujiyaan iyagoo hadiyado u badan kaarar ay erayo iyo sawirro ku xardhan yihiin ubaxyo cascas iyo waliba macmacaan isku hibeeya in maanta oo kale maalinta jacaylka loo damaashaado waxa ay ku timid qiso dhacday qarnigii 3aad ee miilaadiga iyadoo xilligii fogaa ee Romanka uu imbaradorkii markaasi hogaaminayay ee uu magaciisu ahaa Claudius gabi ahaanba mamnuucay in la isguursado isagoo markaasi aaminsanaa in guurku uu tabardareynayo awoodda ciidamadiisa laakiin waxa arintaasi ka hor yimid wadaad kiniiseedka maalintan loogu magac daray ee Valentine isagoo bilaabay inuu si qarsoodi ah dhalinyarada isugu guuriyo markii imbaradorkii uu arintaasi ka warhelayna waxa uu ku xukumay xabsi laakiin wadaadku waxa uu jacayl ku haleelay gudaha xabsiga isagoo kalgacal u qaaday gabar uu dhalay madaxii xabsiga markii ay bisha February 14 ahaydna waxa lagu fuliyay xukun dil maadaama uu asalka ciidani halkaasi ka soo jeedo ma u bannaan tahay in muslimiintuna ay ciidaasi dhankooda kaga dabaaldegaan Sheekh Salmaan Al-Awda oo ah wadaad wadanka Sacuudiga iyo inta badan dalalka Islaamka aad looga yaqaan waxa uu fatwo ku soo saaray in damaashaadka maanta aan u diinta Islaamka waafaqsanayn haddaba marka ruuxa muslimka ahi uu dabaaldegayo ciidaasi waxa uu dabaaldegayaa ciid kristan waxaanu u dabaaldegayaa micnaha laysan oo qaloocan sidaas daraadeed culimadu waxa ay iftoodeen xaaraannimada in ciidaasi iyo wixii ku saabsan loo damaashaado maalinta ay bisha February 14 tahay iyo toddobaadyada ka horeeyaba waxa aad loo iibsadaa hadiyadaha ay dadka isjecel isguddoonsiiyaan munaasabadan awgeed tusaale ahaan xiriirka ganacsatada ubaxyada iyo kaararka ciida ee dalka Mareykanka waxa uu ku waramay in ubaxyada maanta iyo xalay oo kale la iibsado guud ahaan caalamka ay tiradoodu 1 bilyan sare u dhaaftay waxaana ciidani sidaas ku hantiday kaalinta labaad iyadoo midda koobaad ay ka ciriirsatay ciida Christmaska ee dhamaadka sanadka miilaadiga la xuso haddii dadka ku dhaqan dalalka reer galbeedka ay ciida jacaylka ama maalinta jacaylku heerkaasi ka joogto waxa in la isweydiiyo mudan halka ay dalalka islaamka iyo kuwa carbeed iyaguna dhigeen maalintan aragti ururin lagu sameeyay kumanaan gabdha ah oo ku nool dalka boqortooyada Sacuudiga ayaa tilmaamaysa in 80% gabdhahaasi aanay xusin maalintan 80kaasi waxa kamid ah 8% oo aanan ba weligood maqal wax ciid jacayl la yiraahdo halka 20ka kalena ay isku taxallujiyaan maamuusida 14 Febraayo waliba iyagoo soo xirta dhar wada عسانا Sheekh Mustafa Al-Adwi waxa aad looga qadariyaa dalka Masar dalalka Islaamkana waxa uu ku dhexleeyahay sumcad weyn waxaanu gabi ahaan baxarantineeyay u damaashaadka munaasabadan isagoo 3 arrimood sabab kaga dhigaya الأعياد عموما افترض أن الله الذي شرعها guud ahaan ciidaha Ilaahay baa jideeya aadana ma jideeyo ciid walba oo aan ahayn fidri iyo carafo waa ciid bidca taasi waa midda kale hadii ciidani ay shar kordhinayso fasahaadna ay faafinayso dambigeeduna wuu kordhayaa oo sii kordhayaa Ilaahayna fasahaadka ma jecla tan saddexaad hadii ciidani ay sidato gaalo isku ekaysiinayo in la nooleeyo caadooyinka iyo dhaqanka gaalada haddaba qofkii qowm isku ekaysiiya iyagu ka mid yahay فمن تشبه بقوم فهو منهم haddii aan u soo laabano dhalinyarada Soomaaliyeed ee dibadaha jooga waxa ku badan kuwa aad u qadariya maalintan inkastoo gudaha Soomaaliya aanu xaalku sidaas ahayn laakiin kuwa maalinta jacaylka dibadaha ku xusa hadaanayba dhamaantood ahayn intooda badan ma garanayaan sababta ay maalintaasi u weyneynayaan wallahi maanta aad ayaa loo faraxsan yahay maxaa yeelay waa maalinta jacaylka labada jacayl hadii ay siiyaan laakiin ma naqaan ilaa hadda meesha ka timid ciidul xub adduunka loo iidayo mubaaragna iska iidnaanagan hadiyadaha maalinta jacaylka ay dadka iscaashaqsan isguddoonsiiyaan waxa kamid ah kuwa ay ku dul sawiran yihiin ilmo yar oo baalal leh oo qaanso uu haysto ku ganaya wadne ama qalbi Nabil Al-Awadi waxa uu kamid yahay culamaa u diinka aadka loo dhageysto ee wadamada khaliijka waxaanu sharaxayaa waxa uu sawirkaasi yahay suuratu maada hadihi تعرفون ما هذه الصورة هذه بعض مخالفات صوركاسي ما garanaysan waxa uu ka dhigan yahay sawirkaasi waa mid kamida waxyaabihii ka haray Roomankii diin la'aanta ah sawirkaasi waa ilaahooda jacaylka waa ilaaha jacaylka masaakiintuna ma garanayaan ay boorsooyinkooda iyo kaararkooda ay ku sawirtaan xataa mobilada maanta way isugu diraan iyagoo ku ciida kelmad walba oo la qoro ama lagu dhawaaqo ama lagu dhaqmo ilaa hortiisa ayaana lagu su'aali doonaa amam Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah Jaafar Kukaay VOA Sanaa